magacaygu run ahaantii waa Cabdullaahi Xasan Daleel Cali Dheer. Waxaan ku dhashay gobolka Mudug, gaar ahaan Gaalkacyo aan ku dhashtay. Waxaan joogi jiray Muqdisho 2007 aan joogay. Aan ku soo barbaaray kabacdina maxaa waddanka Uganda. Meeshaas aan ku soo qaaday dugsigayga hoose iyo dugsigayga sare. Kabacdina soo laabtay. Haddana maxaan dhigtaa jaamacadda Gaalkacyo. Maxaan dhigtaa kulliyadda Public Administration. BA gaar ahaan maxaa ka sii hay Public Administration ayaan takhasuskayga. Hal-abuurkaas maxay ugu dhashay aniga dugsiga hoose dhigto. Dugsiga hoose waqtigaas maxaa ahay fasalka 6aad. Fasalka 6aad ayaan ahay. Maalin waa arki jiray macalimiinta kamid ah baa iskuulka maxaa ka jira shaambada noocaas camal ah oo laga sameeyay jiray iskuulka oo nagala dalbay jiray arday walba inuu keeno iskuulka oo requirement ahayd oo qof ardayga inuu la imaado laga rabo. Maan ogeyn laakiin in meesha lagu sameeyo mar walba la keeni jiray oo ka gadi jiray macalimadda. Maalintii dambe axad kamid ah baa arkay meesha lagu sameeyo meel luuqa arki jiray mar walba Jimcaha khamiis walba waa noo soo uri jirtay marka darbi meesha soo fuul fasalkan muxuu hadaba kor baa ku dhigi jiray marka noo soo uri jirtay. Maalmaha kamid ah baan weydiiyay waxaan maxay tahay urkan. Maalintii dambe macalimiinta igu dhahday waa shaambadan oo mar walba soo guddiin meesha lagu sameeyo. Bis waxaan niyad uma ahayn markaas waa iska day sanadka bacda markii dambe xiisaha igala inaan barto waxaan sameeyay isku dayo. Macalimiinta ayaan u laabtay aan ku dhahay macalinka wardaab barto ayuu macalimiinta waxay dhahay dhimalo waa baran kartaa laakiin ninkaas ku xiran ninkii tilmaantay ku sameey jiray ninkii ayada wuxuu sameeyay ay tilmaantay ninkii markii tilmaantay nambarkiisa siisay ninkii waan wacay waqti uu qaaday laakiin muddo 3 usbuuc ninkina ka daba wareego aakhir waa helay ninkii ninkii balan bay isi xilli ila balan waqti hebel ku bari ayuu dhahay. Maalintii ma la kulmay markii maalintii dambe meesh gurigiisa geeyay oo i baray muddo usbuuc boo ayada iyo waxyaalo kale igu baray. Iyadoo kale markuu isku baray maxaa laga sameeyay daaweyn oo kiimikayaal oo ayuu ka sameeyay oo fara badan inta oo soo koobi ayuu ka sameeyay oo mid waa adag tahay markii la keeno shaambada markii la keenisteeda ba adag laakiin waxyaalaha waa raqiisanta markii qofku meeshii resource joogo meeshii laga helay waa fudud marka meesha joogto laakiin meel hadda meeshaan camal keenisteeda ba diyaar soo saar wixii waxyaalaha waa adag tahay saas waa adag tahay aad u adag imisa waxyaalaha ka koobnaa ugu yaraan waa 8 waxyaalaha daawan ka koobnaa marka sameysay kadib hadana waxa uu sameeyay caag xogaa kuwii meesha xogaa meelahan baa ka helay caagada laakiin xaqan waa rajaynayna ka keen caagada cusub laakiin kuwa hadda meesha yaal horta ku bilaw kuwa hore shaambooyinka laga isticmaalo aan ku bilaw horta sticker iyo waxyaalaha ku dhagan sticker ka soo daabacday kuwaas meesha ka daabacay soo daabacay taas ugu dhijay marka meesha caagadihi kale sticker da ka fitiya ku dhijay ku mid ka hadda caagadan ka sheekay qof shaambada arag ina sameysay sidaas u sameysay kadib waqti uu qaatay caagadan shaambada markii alaabta la keeno markaas maxay qaadanaysaa laba bari camal qaadanaysaa markii wixii la qaso sugtid laba bari qaadanaysaa garaamkiis isku dirtaa khamiirkii wixii isgalaan kiimikada markii reaction ka isgalaan markaas caadi waa la shubi karaa isticmaal karaa inkastoo waqtigeeda dii la gaarin khatarteeda badan tahay ku degtay faraha la gasho waqtigeeda la gaarin waxyaalihi qaar isku hor yimaadaan dhib in qofkii caqabad ku noqon karto duska fikir daawooyinka camal kuwa hydrogenka waxyaalahaas camal baa ku jira marka khatarteeda qofkii uu ka feejigan marka hore soo qasayo waxyaalo baa caqabad la kulmi kara sidii u kala horeeyaan sidii u kala tabariyeen baa loo isku daray oo mid walba awoodeeda baa isku daray isku mix gareena marka hal dhinac u jilicdino
waa badan tahay marka dhibkeeda khatar. oo midda ku badan haa midday badato waa yaraanaysaa inay waxba tiraysaa laga yaabo marka qiyaastii inay isku keentid isku qiyaastid kooda hore ay iskeento cabir caag bay leeyihiin caag lagu cabiro oo gooni lagu talagalay cadadii labada keemikada marka la isku keeno intii noqonayso markaas caagaas ku cabiraysaa caaga ku hagaaga qiyaasta leh dhaqaalaha walaasha bay iga saaciday xagga keentay marka soo imaanay ma soo qaadan xoogaa laakiin walaasha baan xoogaa ka dalbada xoogaa inay ii soo qaado oo Kampala laga keenay may Nairobi laga keenay Nairobi laga keenay ha Kampala waa taan laakiin Nairobi ay waqtigaas joogtay iga soo qaado ha waa jiraan dad soo wacay aan dhahay waan rajaynaynaa gordhow keendal waa jiraan oo dalab kala u sameeyay ha shirkada ka dalbaday jiray oo iibkooda mise shacab baa jiraan iyo shirkadaba laakiin maalgelin baa ka sugay maalgelinta horta sugay iyo ka dalbaday hormuud wiilal saaxiibaan hormuud baa u bageen waana dhahan waa u baahan intaas dhahan dad kalena waa jiraan shacaba aad baan ugu faraxsan hami weyn baa gala markaa arkay halaburkayga si saayid way galay oo maantana ku guulaystay meeshii aan gaaray haminayay aan ku faraxsanahay intaas miyaa rajaynaysaa inaad shirkada iyo wax kala samaysid shaambada sii wadid mise shaqooyin kala jeceshahay waa rajaynaya inta meeshii shirkadayni waxyaala kale sii gaarsiiyo shirkad noqdo rajaynaya waddanka ku faafo soo saar muwaadin walba inuu wax anfaco oo dharkiisa ku dhaqdo meeshii haddii aan isticmaali jirnay shisheeyaha haddii aan sugi jirnay China wax dalab nooga imaan jiray maanta Soomaaliya wax lagu sameeyay in la arko aan rajaynaya oo muwaadin walba dharkiisa ku dhaqdo oo raqiis ugu keen waddankiisa ciidiisa aan rajaynaya hamiga meeshaas taas rajaynaya maalinta kula mid tahay abuurada iyaga maxaa dhihi dhalinta waxaan dhihi lahaa inay didaalaan oo wax walba wax loo dhashtay ma jirto qof walba waa sidoo iska dhigo marka wax walba inay isku dayaan iyo dadaalkooda intii karaankooda aysan is dhigin ee wadaan soo bandhigaan wax walba hayaan aan u rajaynaa dhalinta saageega ugu yaraan 5,000 meelahaas ugu fiicnaa lahayd bilow ahaan ha ku soo saaraa ku bilow waa rajaynaa dalabyo in lagu sameeyo waa jeclaa lahaa dadka sii faafiya aan jeclaa lahaa ha waan jeclaa lahaa intaas in ka badan sameeyo hadda intaas sameeyay wax ma ka yeelan mise waa ka yeelan xoogaa waa ka yeelan intii u badnayd nin kasta bixiyo xoogaa soo haray dadka dhegeysana waxaan u sheegay in la dhiirigeliyo dadka hal-abuurada in gacan weyn la siiyo oo mar walba dhiirigelin lagu siiyo saasaa jeclaa lahay adigu dadka maalgeliyo kale tusaale ahaan shirkadaha dadka lacagta leh mar uun ma la xiriirtay ma isku dayday inaad waa la xiriir dad badan baa arkay oo dhahay diyaar baa u nahan waan arkay inaan ku maalgeliyo waan sugaya wax shuruudaha ka hor ya shuruudaha ma jiray wax shuruudaha ma jirin weli laakiin waa isku imaanana markii dhahan weli wada hadalkay weli socdo shuruudo ilaa hadda wax shuruuda ma arkin